adduunka islaamku meeshuu taagan yahay wada aragtaan adduunka islaamku maanta in la adoonsanayo wada aragtaan waxa lagu adoonsanayna wax kale ma aha waa cilmigii oo ay ka gaabiyeen adduunka waxa lagu hogaamiyaa waa cilmi adduunka inta maanta inay hogaamisan rabtaa waa inay cilmi leedahay sheekhu alka waxa kale ku sidaray uu leeyahay hadii aan doonino maanta ama inooma noqonayso buu leeyahay marmarsiyo inaan nidhaahdo maanta war faqri baan ku jiraa maxay baan nahay kan waxa soo dhan inooma noqonay marmarsiyo waxa jira buu leeyahay wadamo badan oo halka maanta aan taaganahay meel ka hooseeyo joogay laakiin maanta adduunka hogaaminaya marka runtii gaabinta cilmiyeed ee halkayna dhigtaan aragno ee aan arkayna maanta inaan adduunka taasi sifir baan joognaa ba meel la sheegi karo ma joognaba qolka u fiirso waliba waa de markii inaga caalam islaam maanta eegmayna ka sheekeynay waxyaabaha uu sheekhu soo qaadanay kaliya dalka Masar oo maanta aqoonyahan inoo ayaga meesha inoo tongayaan aragno ayaan ka warramana hadda Afrika iyo soo noqotay de Soomaali iyo dadkeen hadda soo noqotana waxaan ka sheekeyn karnaa marka ceebteenu bad bay raacday ummadda muslimiinta maanta meesha ay taagan tahay iyo adoonsiga aad aragto iyo gaabiska aad aragto iyo in maanta lagu adeeganayo oo wax loo yeedhinayo oo dad saa u daba socdaan waxa keenay wax kala maahe waa cilmiga ay ka gaabiyeen waxyaabaha maanta la isweydiinayo waxa kamid ah ummadii sanaa waxa shay qarniyada dhexe xilliga loo yaqaano inay 130 ka caalami adduunka joogay 120 kamid ah islaam hayaan marka maanta waxa leeyihiin gaaladu isweydiinaysa dadkii ay aabayaashood saahayeen iyo wiilashood maxaa ku dhacay maanta halkii aadeen maxaa hal xabo hataa nool bareys oo qadan laayay waxa kale oo sheekhu ka warramaya de maanta jaamacadaha waxa jira boqolka jaamacadooda ugu fiican 200 jaamacadooda ugu fiican 500 jaamacadooda ugu fiican cilmi baaris noocaas oo la sameeyo cilmi baaris markuu warramay wuxuu leeyahay jaamacadaha islaamku xataa inta yar dhisanay 600 meel ay ka soo gaaraan ma jirto waxa kale arinta kale iyaduna in lagu fiirso ul baahan maanta wax ka qabadka adduunka jaamacadaha jira jaamacadaha ugu horeeyay ee la dhiso waa jaamacadaha islaamada كو يلا جامعة الإسلام ويدد الإسلام كيال إسلام إسكالها كل بربرين الإسلام بإسكالها وحاصل لما كمان توحنا بهناي إن بورك إسكال جفنو إن فرد كسو كعنو إن ديار كرو سمعنو لما أنتين هذا حكومة هاي هذا شعب هاي هذا شخص هاي هذا أرض هاي لما أنت المسؤولية بنسارة مسؤولية بنسارة وحويان روح والبين ودور كيساقاته حكومة ده وحى صارن دولتها inay ku dadaalaan maanta say majaalada aan tabin iyo meelaha banaan si u buuxin lahayn sheekhu wuxuu leeyahay tusaanaha shacabku maanta hadii aan qaadan lahayn doorkeena oo inagu noqon lahayn dad cilmiga u hoggaansan cilmiga jecel sida maanta xafladaha meelaha qarkood loogu dhigo quraanka tusaalaha ardayda ma soo kala xaflado loogu dhigo sidaas lamid hadaan cilmiyada kala laftooduna aan ugu dhigi lahayn oo aan u dhiiri gelin lahayn oo maanta la arki lahaa dadka oo cilmiga jecel oo u jajaban xataa madaxda nubulow markii oo loolanaya waxay ku ololahayn inay iyaguna cilmiga dhiiri galiyaan inay xaflado cilmi sameeyaan inay macaahid cilmi afraan laakiin maanta waa meel kale loo ololeynaya arintaas marka waa arin inaga ina saaran loo baahan yahay in inagu u kacno loo baahan yahay dhalinyaradu inay gacmaha iska qabsato loo baahan yahay shacabku inuu gacmaha iska qabsado in ummadu si guud u fikirto maanta caalamka islaam meesha waxa dhigay cilmi la'aanta waa inay boorka iska jafan ka soo kacaan halka aan maanta joognana ka kicimeyno oo ka soo kicimeyno ilaa aqoon aan la nimaadno oo cilmi baran sideedana cid ku shaqeyn oo intay ku iyadu ku timaado koodhan war soo kacana wax ku baraye ma jirto hadii aan adigu isbarin oo aan boorka iska jafin marka ruux walba mas'uuliyad baa saaran ardayga waxa saaran fiildiga uu baranayo inuu ku takhasuso oo dadkiisa uu ka baahito sheekh waxa saaran fanniga uu baranayo inuu fanniga ku takhasuso dadkiisa uu ka baahito dawladda waxa saaran inay fan walba oo loo baahan yahay ay dad badan u sameeyso sida uu sheekhu sheegay inaan wixii fardu kifaayaha ahaa dadka qaar ku filan lahayn inaan farabadino oo aan ku dadaalo oo la helo intaas oo doctor oo la helo intaas oo mutakhasis oo cilmiga ku takhasustay cilmi walba iyo majaal walba dad ku takhasuso u gaar ah fariinteeda ugu dambaysa waxa weeyaan dhamaanteen aan cilmiga waxay xaydano dhamaanteen aan cilmiga guusha dhisha iskaga dhigno dhamaanteen aan u kacno sidaan ummadda muslimiinta maanta halka tagtay aan u soo gaarsiin lahayn halkii ay joogeen ummadda muslimiinta maalinka ay hogaaminayeen adduunka oo wada garanaysan inay soo hogaamin jireen waxa ay ku hogaaminayeen cilmi waha maantana cilmigu ma ka seexanay kaliya waxaan u baahanahay inaan intaan soo toosno cilmiga halkii uu joogo aan gaarsiino barnaamijkeena akhrisiga aragtay qaybtiisa u horeysa maanta intaas aan ku soo koobaya barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay saas iyo nabad geliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته